Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. holac Somali TV subscribe please. 5 sano ka hor waxaa ka shaqayn jira xafiis sidoo kale xilli dambaan soo bixi jiray aday 7 saac oo habeenimo meelahaas wadadana keemo badan ay lahayd anigana aad baan u cabsan jiray sidoo kale waxaa iska wata alaabtan oo qofka caawimaad u baahdo wadadan ku caawin jiray roob maxaa ka galana da'ay ilaa amarkiis markii dambe waxaa arkay gaari dhinaca taagan hay saaxiib seetahay waa fiicana maxaa idin ku dhacay saaxiib gaariga naga halaa mana caawin kartaa anigana waxaan ku yiri waa idin caawinaa dhib malahan laakiin nimankan tuujiiba uu eegin roobka zaid u daay anigana waxaan ku yiri waryahe albaabka gadaal fur markaas waxaa isla nimankan hal kamid ah soconay laakiin kan wuxuu u baaqaw kuwa kale waryahe fur gadaal markaa meesh fiiri laba nin oo ku jirto oo shuluqyaal ah aad baan u naxay wadnaana zaid u shaqay markaa baashi furo waxyaalo badan oo ka qaldan saaxiib gaarigan maxaa idinka gaas la'aan ma wadeen oo saaxiib hadda ogaada waxa ka qaldan gaarigan koodhe waxaan soo qaadanaa alaabta lagu waxeenay anna arintaas waxaan ka damacsanaa ee ra'yigayga ma ahayn inaan u sameeyo gaariga marka xaasla kuwan gadaalka taagan ama ku soo weeraraan kugu soo ordaan gaarigaygan galay dhaqsan ku wadaba oraalin arkamaando caashatiin cunay ilaa amarkiis waxaba arkaba gaarigooda soo socdo markaasay gadaal igu dhufteen nimanka maxaa ka qaldan daaqadii furan waryahay ciyaal ma noo malaysay waxay ku dhalacuna hadda ku dileena mindi dheer la soo baxeen waryaha fur daaqada dhaqso daaqadii bilaabay inay igu soo jijibiyaan warheeda nimankan inay dilaan may rabaan gaariga u istaajiyay way soo ordeen waa dileena kan caaw buday la soo ordeen anigana haddii speedka u dambeeya gaariga ku waday aniga ma aqaanin nimankii meelay ka baxeen waa waayay habeenkaas oo cabsaday ma rumaysan kartid haddaba waxaa dhacday 3 bari kadib anigoo xaafadda joogo newska waxaan ka maqlay daawadayaal waa idin salaamay group tuuga ah ayaa waxay weerareen wiilkan ishiina kala baxeen anigana ilaa iga badbaadi waana qiso xanuun badan oo dhacday asxaabay like saara mahadsanid haddaba aabbe wuxuu qaatay retire macnaha shaqadu ka fariistay markaas gaarigan uu noo soo gaday RV ayaa la yiraahdaa macnaha gudaha guriga ku leeyahay mar walba marka trip aadi jirnay ugu dambeyn waxaa dhacday marka isha gaarigan uu iska halaabi jiray waxa ka qaldan ma aqaan inta badan marka walaalkii oo la yiraahdo Cabdullaahi ayaa sameyn jiray haddaba inta badan gaarigan waxaa ka halaysan badanaa waxaa maqli jiray shanqartiisa hal maalin marka waxaa go'aansanay anigii walaalkay meeshaan baarka inaan keeno aan ku iraahdo waryahay gaarigan waa sameynaynaaye aniga horta qamran soo cabaa si ilaali bis meesha banaanka marka waxaa ku aragnay mootooyin oo meesha yaalo kuwa tuugadaana lahaa marka waxaa isiniri ama nalaga xadaa gaariganiyo ilaa amarkiis markii dambe anakoo iska baashaaleyna haddee nimankan zaid inoo fiirinayeen way noo imaadeen waxay nagu yiraahdeen waryada naga qaada dhaqsada gaarigeena weyn xagee marnaa wadada dhana naga xirteen waxaan maandhocyaashii maxay ahaayeen kantima cilaan kale wuxuu yiri waraa maxaa kaa galaaday waxaad may saaxiib iska daa nimanka ana okay saaxiib waa idinka qaadayna haddee isdejiye bis waa soo baxnay kuwo kalena banaankii taagnaayeen marka lacagtan dhiibnay banaanka marka imaanaba gaarigeeno dhaawac loo jeestaaba aragno ana saaxiibkii Cabdullaahi waxaan ku yiri waraa gudaha sii galnay oo gaariga uu halaa waa yara sameynayay safar dheer aan sugay dhaqso anigoo sameynaa hadee baabuurkii ninkan soo horstaagay wariyaa adi maxaa ka qaldan saacadu ugu dhamaatay yariso ama wallah waa ku dila caaw mujeedido fiir inta fiiri xabadaasan kugu baabi'inaya aqoon ima liid aniga markaas soo orodnaad
hadda waxaaba arkawa nimankaananu soo daba socdo nimankan wax walba u sameynay maxay rabaan talo ha waryahe gaariga ha istaajiniyo anigana booliisa wacayaay booliiska wacay 911 igama qabanaaniyo haddaba nasiib xumo gaariga shidaalka naga dhamaaday waxaa sameynaa garan weyna marka waxaan ku khasban hadda inaan istaagno bis kana imaaday wuxuu yiri waraa fur gaariga dhaqsada haddee ninkaanoo noo soo socdo ilaa amarkiis booliiskiyaaba imaadaba haddaba saaxiibkii wuxuu igu yiri waryahe wakuwaasaa booliiski anigana banaanka u soo baxay saa u istaajiyo ilaan booliisba ma aheenba ambulance ahayd anigana yaab nimankiina bahashaanay ka carareen booliisi u malaynaya anigana gaarigan ku soo noqday markaasaa saaxiibkii waxaan ku yiri warheedhe bahashaas wayna badbaadisa caawe saacadan haddii kale waa dhiman laheene nasiib baan leenaha wallaah asxaabi layga saar waan ku mahadsantiin daawashadiina okay wax yaroo faahfaahin haddaan ku siiyo waxaa u qaatay bahasha lagu jarjaro alwaaxyada maskaxdaa rabe inaa uga jarjaro markii dambe way qeelisa waana ka dhaafay haddaba aniga waxaan ku yiri xaaskaada sidan maxaa ugu gashanay oo bidaarta weyn maxaa kaa qaldan markaasaa wuxuu igu yiri dumarka haddii weynaadaan wax walbay sameeyaan anigana ciyaalnimo iila imaaday iyo inay tiraahdo naag kalaa shukaansatahay waxaas saas darteeda u dilay anigana ayadan jeclahay ayadan nin kale jeceshahay qof dumar oo la qabo waxaa sameynaysana waa sharci daro okay booliiska waa soo dira wax yar kadib gurigaada imaanaya ee ambulance weyna imaada naayahay maandhacadii ma booliisa ku yiri soo dir mise ambulance hadda waryaa gacmaha kor u taag waxay bidaarta weyn maandhacataa cuna wadanka sharciga yaal gabadhana suu u dila haddaa aragti meesha dhan wada dhiig bismillaahi raxmaani raxiim ninkiina waa la soo qabtay 10 sano xariga gabadhina waxaa la geeyay cusbitaal haddaba booliiskii markay baareen gurigiisa ninkan waxaa lagu arkay mindiyo fara badan anigana google search waxaa ku qoray dentist Billy waa dhakhtar qaabilsan qofka marka arrintaasoo kale lafaha laga shiidoo kale baarayo laakiin ninkan bidaarta weyn waxa ka qaldanaa garan waaye xaaskiisa uu jeclaa saas muxuu ugu galay midda kalena wuu qiyaanay sidoo kale hadda gabadhina meeshii ku dhimatay asxaabay layga saara God, oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down